Assalaamu calaykum daawadaha qiimiga badanow waxaan si sharaf leh kuugu soo dhaweynayaa channelkan. Waa Macalin Cigaal. Waxaan rabaa inaan halkan ku soo gudbiyo qaybtii labaad mowduucii mudnaanta fikirka. Waxaan maanta soo qaadanaynaa sheeko yar oo gaaban, laakiin duruusta ku jirta waxay dhiig cusub ku shubaysaa caqliyadeena hoose, waxayna noo kalifaysaa inaan dib isku xisaabino. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Korintaanan gudagelin sheekadeena, waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalka like saartid, YouTube-kana subscribe haddii nagu cusub tahay kusoo biirtid, page-kana like saartid. Sheekadeena gaaban maanta waxay ku saabsan tahay nin la yiraahdo Xafiis. Xafiis wuxuu ahaa nin beeraley ah oo ku nool dal ka mid ah qaaradda Afrika. Waxa uu ahaa nin ku faraxsan noloshiisa, hantida uu haysta, beertiisa iyo xoolihiisa. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu yimid nin xikmad low ah, wuxuuna uga sheekeeyay qaalinimada dhaymanka. Waxa uu u sheegay haddii aad haysatid dhayman la-eg suulkaaga, waxa aad yeelan kartaa magaalo dhan oo adiga kuu gooni ah. Sidoo kale haddii aad haysato dhayman feerkaaga la-egna, waxaad samaysan kartaa waddan dhan oo adiga kuu gooni ah. Halkaas markay sheekadu marayso oo intaas ay dhegihii Xafiis ku dhaceen, ayaa Xafiis waxaa ku dhacday qanaaco la-aan iyo walwal iyo fikir. Waxa uu ku fakaray inuu ka baxsado nolosha hadda uu ku jiro oo ah beerta iyo hantidan uu haysto, oo uu raadsado dhayman. Waxa uu raadiyey cid ka iibsata xoolihii uu lahaa iyo beertii. Nasiib wanaag nin ayuu helay oo beertii iyo xoolihii ayuu ka gatay. Isaguna wuxuu bilaabay hantidii uu beertii ku iibsaday inuu ku raadiyo dhayman. Waxa uu maray qaaradda Afrika oo dhan, nasiib xumase wax dhaymana kama helin. Wuxuu u gudbay Aasiya iyo Yurub, sidaas si la mid ah weli wax dhaymana ma helin. Xafiis marka uu marahayo webi ku yaala waddanka Spain, magaalada Barcelona, ayaa waxaa ka dhammaaday niyaddii uu u hayay inuu raadiyo dhaymanka. Sidoo kale waxaa dhammaaday sahaydii, waxaa kaloo isbedelay muuqaalkiisii, isagii dhammaan waa niyad jabay oo wax uu xilligan kadib dhayman uu sii raadin kara ma leh. Sidaas daraaddeed wuxuu go'aansaday inuu isku tuuro webi ku yaala magaalada Barcelona ee waddanka Spain. Halkaas ayuuna ku dhintay. Dhanka kale, ninkii iibsaday beertii Xafiis ayaa maalin dambe isagoo oo toga beerta dhex mara ka waraabsanaya geeliisa, waxaa qorraxda soo baxday iftiinkeedu dhalaaliyey dhagax ka mid ah kuwii qarka toga saarnaa. Dhagaxiina waxa uu bilaabay inuu cawiro ama uu indhaha ka qabto qofkii eega. Ninkii ayaa qaaday dhagaxii isaga oo u bogay quruxdiisa, balse aan garanayn waxa uu yahay dhagaxani. Wax alla wax uu dhagaxan uu ku sheego oo uu yaqaano male, laakiin wax u bogay quruxdiisa. Wuxuu u go'aansaday in uu guriga ku quruxsado dhagaxan iska dhaldhalaalaya, oo uu guriga uu meel ka saarto si uu qurux ugu noqdo. Maalmo kadib waxaasna soo maray ninkii Xafiis u yimid ee xikmad lowga ahaa ee uga sheekeeyay dhaymanka. Markii uu qalabkii gurigii yimid ayuu wuxuu indhihiisa ku dhaceen dhaymankii oo guriga iska kor saaran. Markaasuu wuxuu ninkii su'aal weydiiyey, wuxuu yidhi, war ma ninkii Xafiis ahaa ayaa soo laabtay? Maye, maxaad aragtay? Wuxuu yidhi, Xafiis soo ma ahayn wixii uu raadiyey dhagaxaas halkaas ka muuqda ee guriga kuu saaran ee dhaymanka, soo ma ahayn wixii uu raadiyey oo beerta iyo uu iskaga gada? Wuxuu yidhi, maya Xafiis ma soo laaban, dhagaxan aniga ayaa beertayda ka helay, waxaanan bilaabay inaan guriga ku quruxsado. Ayagoo badanna hadda waa ku soo tusahayaa, oo haddii way badan yihiin, ayagoo badan ayay beerta ku yaallaan. Ninkii ayuu waday, meeshii ayay tageen, dhagax badan ayay ahaayeen, waa la soo guray. Kadibna waxaa loo geeyay dadka dhaymanka yaqaana. Dhagaxdiina waxay noqdeen kuwo ayagoo dhan wada dhayman ah. Sidaas daraaddeed waxaa la ogaaday markii khubaradii dadka dhaymanka yaqaana ay baareen in beerta Xafiis uu iska gaday iyo dhulkaas oo dhow dhan ay wada ahaayeen ama ay ahayd dhul wada dhayman ah. Okay, akhyaaray, haddaba waa maxay duruusta aan ka baran karna sheekadan? Waxaan kusoo koobayaa 3 qodob.
oo aad iyo aad muhiim ah oo aan ka baran karno sheekadan. kulley qodba cidba intay ka fahantay waa muhiim. qodobka koowaad ee aan duruustan sheekadan ka baran waxaa weeye in marka hab fikirkeenu wanaagsan yahay aynu ku dul soconno dhulweyne wada dhayman ah. qodobka labaad oo aan fikradan ka baran karno waxaa weeye in mararka qaar markii aadan aqoon u lahayn waxa fursaddu ay tahay, laga yaabo in mararka qaar ay fursaddu wejiga kaa dhurbaxdo oo aadan garanayn waxa ku dhurbaaxayna in ay tahay fursaddii. bal ka waran ninka yidhi dhayman ayaan rabaa inaa guriga ku quruxsada. ka waran ninka yidhi, waa marka waxaad dareemi kartaa in aqoon la-aan ay u geynaysa ninkaas. oo mararka qaar haddii aadanba aqoonba waxa aa rabta inaad qabsatid, laga yaabo fursadiiba inay ku dhurbaxdo oo aadan garanin waxa ku dhurbaxay inay fursadii tahay. qodob saddexaad oo aan rabno meesha oo aan ka baran karna waxaa weeye cagaarka beerta, hadba beerta kaa fog ayaa ka cagaar badan midda aa ku dul taagantahay. oo tusaale ahaan marka qaar waxaa laga yaabaa in beerta kaa fog cagaarkeedu in laga waraabadiyey taada oo ay ka waraab badan tahay oo ka cagaar badan tahay, laakiin inta badan waxa muuqdaa waa bidhaan, ma ahan dhabta maaha. oo waxaa laga yaabaa qofka beertaas cagaarkeeda adugu u hanqaltaagaysa oo aad jeclaan lahayd beertaas cagaarkeeda inaad qaatay, ama waxyaabaha adugu u hanqaltaagaysa waxaas iga maqan, waxaasaan aan ficnaan lahay inaan heli laha. waxaa laga yaabaa qofka waxaasi haystaa inuu asaguna kaaga usoo hanqaltaagayo oo uu jeclaan lahaa in beertaada tiisa loogu bedelo, hantidaada in hantidiisa loogu bedelo, oo weliba uu ku faraxsanaan lahaa. marka hadba waxaan leenahay marka duruusta ka baran waxaa waaye hadba waxa u hanqaltaagaysid ma aha waa baydhaan ma ahan dhab. bal ka waran ninka dhulkii wada dhaymanka asagoo haysta intuu iska gaday raadiyey, haddana maxaa la yirahdaa isheeg dhayman raadiyey. marka kusoo dhawaada youtube-ka, fadlan muuqaalka like saar, share garee, subscribe dheh, kusoo biir youtube-ka. asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu.